soo dhawaada saaxiibayaal markale filimku wuxuu ku bilaabanayaa William Sinisyan iyo Arbixiyeen wuxuu go'aansaday inuu sameeyo meel la mid ah dhulka dadka bini'aadamka ku noolaan karaan halkaas oo oxygen iyo biyo laga heli karo ujeedada darteed wuxuu go'aansaday inuu safar Mars safarkaas oo ku qaadanaya qiyaastii 270 maalmood waxaa maqalnaa codka William oo caalamka oo dhan marka la eego Mars waa dhibic yar halkeena loo ka jiro mana jirto geeri laakiin waxaan go'aansaday nolosha halkaas geeyo maalin kastoo sii dhaafto Mars u sii dhawaanaya waxaan dareemayaa in Mars iyo waxaana la tusiyaa muuqaalka diyaargarowga William gacmeedkiisa safarkan waxaa la socda Arbixiyeen kale oo la yiraahdo Emily balse William marka hore u baxaya maalmo kadib yahay in Emily idin gacmeedkeedii raacday si ay ugu biirto dad badan waxay u arkaan in safarkan William uu yahay mid guuldaro ah waxay u maleynayaan inuu ku qasaarayo balse William wuxuu lahaa rajo weyn ugu dambeyn gacmeedkiisii ayaa hawada galay markaas William wuxuu daawadaa dhulka meel fog kaga muuqda gudaha gacmeedkiisa isagoo xiran jaakadiisii hawada caalamka xidigaha dhammaan waxay ahaayeen kuwo qurux badan William weligiisii ma arag muuqaal sida u qurux badan wax walba waxay u socdeen si looga talagalay wuxuu ka helay ogolaansho xarunta kontaroolka si uu furjidkiisii hawada una bilowlihiisa caadiga ah saaxiibkiisa Skinny iyo kontaroolka howlgalka ka hayay dhulka maalmo kadib Skinny wuxuu weydiiyay William qalabkii uu sameeyay Electrostorka ahaa Electrostorkan wuxuu ahaa mashiin ka soo saari kara oxygen iyo hydrogen ciidda kadibna ka dhigi kara biyo kuushan dhammaan hawsha William waxay ku xirnayd mashiinkan William wuxuu rumaysay in Electrostorkan uu bixin karo biyo oxygen Mars gudaheeda inkastoo Electrostorka weli uu dhamo William wuxuu rajeeyay inuu dhameystiro doono 272 maalmood gudahooda ee safarka waxaan aragnaa William maalmo hawlihiisa ka shaqeynaya gudaha gacmeedka wuxuu diyaarsaday cuntadiisii biyaha ka soo saartay Electrostorka wuxuuna waraabinayaa dhirta uu rabo inuu ku beero Mars safarkan banaan waa mid aan sahlaneyn inuu naato muddo dheer waxay si weyn u saameyn kartaa maskaxdaada si uu maskaxdiisa u caafimaad qabto William wuxuu jimicsi sameeyaa buugaag akhrinaya shaqadiisa ku mashquulsan yahay wuxuuna qoriyaa buugaag xasuus qoran laakiin inkastoo uu sida sameeyo dadiisii ayaa dhibaato gashay maalmo kadib walwal ayaa ku badanaya wuxuu maqlaa dhawaaqyo kala duwan ka soo baxaya dhulka haddana weli hurdo la'aan ayaa haysta wuxuu ka cayaa si ugu shaqeeyo Electrostorka wuxuuna ka baqayaa in haddii Electrostorkan uusan shaqeyn howlgalka oo dhan fashilmi doono waxaan aragnaa markii ugu horeysay William Electrostorkiisii tijaabadii geeyo lama deegaanka wuxuu Electrostorka dhisay muddo dheer balse markuu halkaas geeyay wuu shaqeyn waayay wuxuu ku fikiray inuu tago lama deegaanka isagoo wax biyo ah wadanin xagaagii kulaa lama deegaanka wuxuu si joogto u shaqeynayaa 3 maalmood markuu biyo la'aan ku sigto inuu dhinto wuxuu haystaa hal fursad oo kale inuu Electrostorka saaro biyo si uu isku badbaadiyo xilligaas wuxuu awood u yeeshay inuu Electrostorka dib u hagaajiyo waxaana markii ugu horeysay mashiinka biyo siiyo biyahaas ayuu ka caabiyay wuxuuna naftiisii ku badbaadiyay lama deegaanka waa markaas markuu go'aansaday inuu tijaabadiisa keeyo meel fog tijaabadan wuxuu rabay inuu ku muujiyo in Mars lagu noolaan karo wuxuu tusiyaa saaxiibkiisii Skinny kaasoo rumaysan yahay himiladiisii wuxuuna diyaarinayaa qorshaha Mars ugu dambeyn William wuxuu bilaabay safarkiisii isagoo rajo weyn qaba inuu guuleysan doono Skinny wuxuu ka helay warbixin maalin kasta wuxuuna dareemayaa in waxba gacantiisii ku jiraan 2 toddobaad kadib William wuxuu joogsadaa saldhigga cirka si uu qabto sahay markuu joogsado wuxuu halkaas kula kulmaa 2 Arbixiyeen oo kale wuxuu aad ugu farxay inuu arko dad kale maxaa yeelay muddo dheer ayuu kaligiisii ahaa laakiin Slim Plan iyaga farxad ku muujinayaan kulankiisii William kuwii jibsan waxay u sheegeen William inay rabaan inay ku laabtaan dhulka sababta tijaabadoodii way ku guuldareysay dhammaan dhirta iyo xayawaanka halka la yimaadeen waa ay dhinteen hadda ma jir sabab igu sii nagaadaan banaanbaxa waxayna aad u tabanayaan qoyskooda mid kamid ah William wuxuu ku yiraahdaa weli waxaa haysta fursad dii arabta inaad dhulku noqoto William arintaas uu la yaabaa maadaama uu safarkiisii isagoo leh rajo aad u badan oo ay wax dhibaato haysan halkaas William ku maqlaa war aad u fiican in imaadin ka soo baxay safarkii Mars gacmeedkii ayaa la taasi waxay William ku beertay farxad weyn markuu warka maqal Arbixiyeenkii kale wuxuu sii murugoodaa maxaa yeelay wuxuu arkaa in 2 qof noloshoodii halis ku jirto wuxuu William ugu digay inuusan qaadan go'aan ku shaqeynayo mustaqbalkiisa kasta William wuxuu u laabanayaa gacmeedkiisii wuxuuna ka fogaanayaa saldhigga cirka safarkiisii wuu sii socdaa wuxuuna ka sii fogaadaa saldhig oo hore u sii socdaa
laakiin weli ereyadii codbixiyaankaasi waxay ku wareegsanayeen maskaxdiisii. Wuxuuna xusuustaa xaaskiisii hore iyadan ahayd codbixiyeen. Markay tagays wuxuu dareemay in maalintaas ahayd maalin murugo ah. Maalmo kale sii dhaafto waxaana burbur gaaray stoorkiisii. William wuxuu rajeynayay inuu hagaajin karo. Dhab ahaantan wuu ku faraxsanaa caqabadan cusub sababtoo maalmo badan kadib wuxuu helay kuwa ku dhow shaqadiisii caadiga ahayd. Maalmo ayaa sii dhaaftay markuu awoodi waayay inuu hagaajiyo stoorka. Wuxuu bilaabay inuu fahmo niyadjabka codbixiyaanka kale, laakiin weli isaga ma uusan noqon mid quusan. Weli wuxuu rajeynayay inuu hagaajin karo stoorka sida markii hore stoorka ka saaray cilada markuu joogay lamadegaanka cusub oo ka dhigay mid biyaha soo saara. William waxa ma uusan u sheegin Skinner madaxa walaalkiisii. Maalintaas waxay ahayd maalintiisii dhalashada, sida darteed qoyskiisii waxay u direen muuqaalo farxad leh. Markuu daawado muuqaalkaasi aad buu ugu farxay si uu ugu mashquuliyo. Wuxuu bilaabay barashada luqado cusub. Wuxuu sidoo kale dareemay dhirta uu wada siduu ugu beeri lahaa Maris. Wax walba waxay u muuqday inay caadi yihiin, balse maalmaha ka mid ah xiriirkii uu la lahaa Houston xarunta dhexe iyo codbixiyaanka kale wuu go'ay. Wuxuu aad u baqay markuu muddo isku day. Ugu dambeyn wuxuu la xiriiray Skinner kaasoo u sheegay in dhibaato ka dhacday dayax-gacmeedka Emily, sababtaas awgeed ilaalima xiriirka dhulka. William wuxuu ku yiri hawlwal waxaan isku dayaa inaan la xiriiro aan fahamsiiyo xaaladda. Si kastaba Skinner wuu ku digay wuxuuna ku yiri adiga ma heli kartid haddii wax qadamaan adiga ayaa mas'uul ka noqon doona. Laakiin William wuxuu ku jawaabay rumayso waa la xiriiri karaa Emily. Wuxuuna tusiyay dayax-gacmeedkiisii isagoo bilaabay inuu siiyo tilmaamo ku saabsan sida loo hagaajiyo cilada. Ugu dambeyn Emily iyo William way ku guuleysteen dayax-gacmeedkii Emily waa la hagaajiyay. Xiriirkii Emily la lahayd dhulka wuu soo noqday. Xarunta dhexe waxay markale gacanta ku dhigtay dayax-gacmeedkeedii waxay u celisay dariiqa saxda ah. Arrintaas darteed William, Skinner iyo Emily ku farxeen. Hadda maalmo ay sii socda. William ma uusan garanin maalinta iyo habeenkii gudaha dayax-gacmeedka. Wuxuu si fudud ugu noolaaday gudaha. Waxaa dhacday mar uu dareemay ugaartiisii inay lumayso, laakiin waxba kama qaban karin arrintaas. Habeen kasta ka hor intuusan seexan wuxuu dhegeystaa cod uu ka heli jiray dhulka sida roobka, codadka shimbiraha, laakiin hadda xitaa wax saameyn kuma yeelan waxaasoo dhan. Muddo dheer iyo keligiisii wuxuu bilaabay inuu dareemo in banaanaha sare ku dhex miilaayo. Wuxuu keligiisii wax ku cunayaa. Wuxuu isku dayayo in nafsiyan uu xoog yeesho, laakiin markaas ayuu arkay in dhibaato weyn ku dhacday stoorkiisii. Isku daygii cusub uu sameeyay si uu hagaajiyo stoorka. Biyihii stoorka ayaa bilaabay inay sun yeeshaan. Stoorka wuxuu sun ka dhigay dhammaan biyihii yaala gudaha dayax-gacmeedka. Biyuhu isticmaali karo hadda ma aysan jirin. William wuxuu ka baqay in arrintan u sheego xarunta dhexe. Wuxuu ogaa in haddii arrintan la wadaago howlgalka la joojin doono, laakiin safarka Maris wuxuu rayadiisii ugu weynayd ma uusan doonin in rayadiisii sidaas ku burburto. Markuu Skinner la xiriiray wuxuu daray in wejiga William uu muujinayo in dhib jiro, laakiin William wuxuu ku yiri kaliya waxaan ka walwalsanahay kelimada dhulka. Laakiin Skinner uu ka shaki qabo. Wuxuuna arkay in William inta badan stoorka ku mashquulsan yahay. Wuxuuna weydiinayay stoorka ma ku fiican yahay. William wuxuu mar kale been u sheegay. Wuxuu ku yiri wax walba gacanta ayaan ku hayaa, laakiin wax walba si qarsoodi uma socon karin. Maalin kale qaybo kale stoorka ayaa gubta. Wuxuu aad ugu walwalsanaa xaaladda. Isla markaas Skinner ayaa u sheegay in howlgalka Emily la joojiyay sababtoo dayax-gacmeedkeedii aad buu ugu dhaawacmay. William isaguna wuu murugaysan laakiin ma muujinayo murugadiisii. Wuxuuna ku yiri hawlwal wax walba way hagaagi doonaan. William waxaa taageeray Skinner laakiin rajo kasta way burburaysay. Wuxuu ogaa in uu wajaho geeri hadda wax isbedel ah ma dhicin. Wuxuu dhiman doonaa dhawaan sababtoo biyo la'aan. Wuxuu daryeelay biyaha si badan dhibic ayuu cabayay. Dhirtii uu bato waxay bilaabay inay qalalaan. Wuxuu bilaabay inuu ku joojiyo biyaha dhirta iyo ciidda si naftiisii ugu noolaadaan. Hadda 5 bilood ayaa laga joogaa. William wuxuu naftiisii ku sii hayay dhibic biyaha maalin kasta. Maskaxdiisii waxaa ku wareegayay maxaa dhici doona haddii aan gaaro Maris oo stoorka hagaajin. Wuxuu ogaaday inuusan arrintan mar dambe ka qarin Skinner. Markuu Skinner weydiiyay William wuxuu u sheegay in stoorkiisii uu burburay, biyuhuna ay sumoobeen, la'aantoodna ma noolaan kara. Xaaladda aad bay u xumeed. Skinner wuxuu u sheegay inuu siinayo hal maalin haddii uu stoorka u hagaajin karo hal maalin gudaheedii. Howlgalka waxaa la joojin doonaa. Halkii uu maraysay dayax-gacmeedkii waxaa loo celin doonaa dhulka. Markuu tan maqal William aad buu u murugooday. Sanado badan u diyaar garoobaya howlgalkan sidee loo baajin karaa hadda, laakiin xitaa maalinta xitaa ma uusan awoodin inuu hagaajiyo stoorka. Sidaas darteed Skinner wuxuu faray inuu xirto dharka banaanka socdaalka oo diyaar u noqdo. Dayax-gacmeedka waxaa loo rogayaa dhanka dhulka ah. Shidaalka hore ayaa loo geeyay saldhigga hawada sare lagu cusboonaysiiyay
gaarsiin lahaa shidaalkaasi wuxuu ku filay in dayax-gacmeedka lagu soo celiyo dhulka uma uusan shaqaynin sanado badan si ugu laabto. Si kastaba oo ay tahay waa in uu gaaraa hadda Mars, taasi darteed wuxuu go'aansaday in dhammaan go'aanada iyo gacanta xukuumeynta dayax-gacmeedka iska dheereeyo isla markaana uu jiro dhammaan xiriirkii uu la lahaa dhulka. Markuu arrintaas sameeyay Skinny wuu ogaaday. Skinny wuxuu ku yiri adigoona siin iyo xarunta la xiriira ma gaari kartid Mars, waxaa dhici karta in dayax-gacmeedkaada aad la wareegto meel aadan garin oo dhiman karto. laakiin markaan William cindama dhageysan markuu dhammaan xiriirka dhulku jaray walgalkiisii dhabta bilaabmay. dhabtiisii dhabtaheed waxay ahayd inuu gaaro Mars sigoo la tacaalaya biilaan. wuxuu ogaa in haddii xataa wax yar uu qaldo ku dhaxluminayo banaanaha sare maalin kasta wuxuu ku noolaaday dhibic biyo isagoo la tacaalaya dhibaatooyinkiisii inuu weli leeyahay awood ku hadli lahaa ku orin lahaa ama wax ku maqli lahaa. intaas oo dhan dhexdeedii wuxuu marar badan isweydiiyey maxay tahay sababta aan albaabka dayax-gacmeedkeedu u furan waayo iskaga tegay banaanaha sare. laakiin markaas wuxuu iska yeelin jiray fikradahaasi. maalin maalmaha kamid wuxuu helay Senegal daciif ah halkaasoo Skinny isku dayay inuu la xiriiro. wuxuu ka codsanayaa inuu la soo xiriiro dadka dhulka weli waxay qabaan rajo in William uu nool yahay wax u qaban doono. markuu tan maqalay Skinny rajo yar ay ku dhawato qalbigiisii iftiimisay. qoobta xigta waxaana la tusiyaa dayax-gacmeedkiisii ku dhex binaan dooraha midbaha leh. ruuxaas waxay ahaayeen kuwo ku hareeraysan Mars. dambeyn wuxuu gaaray agagaarka Mars isigoo xiran dharka hawada sare oo diyaar ah inuu ku dego Mars. dambeyntii markuu ku degay Mars waxaana la tusiyaa isigoo cagta saaray dhulka Mars. halkaas uu sheekada filmkeeni ku dhamaanaysaa. haddii halkaan nala soo gaartay aad iyo aad baan u mahadsantahay. hadduu adiga subscribe ku waxaan kaa codsanaa muuqaalkan inoo saartay meel dheer noo gaaro. aad iyo aad baan u mahadsantahay.